بسم الله الرحمن الرحيم كسو دوادا عشر كاني نو سعودي how to study and understand academic lectures سيداد حبران لهايد isla markaana u fahmi lahayd casharada jaamacadaha aad iyo aad waxaan uga soo hadalay muhiimadda ay leedahay ardaygu inuu fahamsan yahay casharka muhiimadiisa waxaanan soo qaadanay qodobadii hore uga soo hadalay oo ahaa qaabka uu note-ka muhiim u yahay ardayga inuu qaato haddaba listening process waxaa ka mid ah ardayga ujeedada dhan ee aanu leenahay note-ga qaado waxa waaye in uu record gareeyo informationka in uu xafido xogta uu macallinku si verbal ah ku siinayo inta uu casharka ku jiro muhiimadda uu note-ku leeyahay in aad qaadatid note taking muhiim ah ama waxyaabaha muhiimka oo si kooban u qaadatid casharkii macallinku ku dhigayay aad iyo aad ay muhiim u yihiin laanahu casharku macallinku uu ku sheegayo academically aad iyo aad wuxuu muhiim kugu yahay inaad qaadatid note take haddii kale wax badan oo macluumaad ah ayaa isaga dulfuulaya oo muddo mid saaraysa awoodna uma lihid in aad dhamaantood wada xasuusnaato sida marka ugu muhiimsan ee adigu aad wax ku qaban karto academic success buuxana aad ku gaari karto waa in aad note qaadataa haddaba maxaa uu tarayaa note-gu waa ka soo hadalay wuxuu tarayaa waxa weeye in aad xasuusnaato casharkii macallinku ku akhriyay wiiga bilo xataa sanado kadib inaad xasuusnaato taasoo saldhig u tahay fahmidda aad fahamsan tahay topiga main idea-da iyo detailska ku xiran wax badan ayaan ka soo hadalay dunida marka waxaa jira hababka fara badan oo loo qaato note-ka macluumaadkana lagu urursado inta badan waxaan soo qaadan doonaa annaga casharkeennan ama tababarkeennan ardada waxaan u soo qaadan doonaa Cornell Note Take Tips waxa la yiraahdo oo ah jaamacadda la Cornell ee Mareykanka ayaa waxay soo saartay Note Tips iyada ay soo saartay kontimeeyadii ilaa iyo 70meeyadii kaasoo si baahsan looga isticmaalay dhammaan dunida ahaana note-ga ugu faa'iidada badan marka la fiiriyo qaabka note-ga loo qaato kaas ayaan jeclaystay inaan idin la wadaago si ardadu ay si wanaagsan oo kooban oo xirfadaysan ay u fahmaan casharka macallinku siinayo si buuxdana berito ay u xasuunaadaan talaabada koobaad marka haddaanu soo qaadano waa kan note-gu waa kan wuxuu ka kooban yahay saddexdaas qaybood intaan ka kooban yahay waa note-kaas saddexda qaybood ka kooban qaybtan ugu horeysa waa questionska intaadan qaybtaa gaarin class note-kii waad qoranaysaa topicgii halkaad ku qoranaysaa speaker-ka ama instructor-ka macallinkana halkanaad ku qoranaysaa adiga magacaaga iyo galaaskaaga iyo date-kiina halkaad ku qoraysaa sidaa darteed saddexdaas qaybood ayay ka kooban tahay qaybtan bannaan ee bidixda xigta iyo qaybtan ballaaran ee loogu talagalay note-ka in aad ku qaadato iyo qaybtan u dambaysa ee ah summary ay ku qoran tahay saddexda qaybood muhiimadooda waan baran doonaa sidaa darteed casharkaana waxa ugu horeynaya step 1 markaan ka hadlayno waxaan u jeednaa inaad marka u horeysa fahamtid warqadii hadda aan ka hadlaynay sidaa darteed inaad nog qaadato oo casharka qaata warqada markaad soo qaadato big white section-ka qaybta u weyn ee maxaan ku yiraahdaa cad ee u horeysa waa meesha aad ku qoranaysid note-kaaga uu aadayo
inta badan waa big white sectionku waa halkan waa qaybtan halkanna waxaa loogu talagalay main idea-da halkan main idea-da ayaa loogu talagalay halkanna waxyaabaha noodka ah oo dhan ayaad ku qoranaysaa sidoo kale halkan waxaa loogu talagalay waxa loo yaqaano clues oo aan baran doono oo ah erayada iyo baaqyada ama signalka uu macallinku markuu casharka akhriyayo erayo uu adkaynayaa jira kaasoo muhiim u ah arday kasta inuu fahmo dib ayaanan ka faahfaahin doonaa laakiin note takenku markaad ka fakaraysid waa saddexdaas qaybood taa main idea-da noodka iyo summary-daas saddexdaas qaybood ayuu ka koobnaan doonaa oo aanu sii baran doono haddii alla yiraahdo